magacaygu waa xabiib sheekh maxamed sahal halkan waxaan iskugu imaanay jaaliyadda ilaa koonfur afrika waxaan ka tacsiyeynaynaa hawshii foosh axmed ka dhacday xadhaan muuse ugaas maxamed cabdullaahi xaamud waan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun hawshaa meesha ka dhacday foolxumada ahayd aad ayaan uga xunnahay haddaan nahay beesha ku nool koonfur afrika waxaan kale u tacsiyeynayaa dadkii meeshaas lagu laayay hela dheere new booliska dhexdooda ahaa waxaan leeyahay haddaan nahay beesha ku nool koonfur afrika hawshaasi waxaan ku leenahay dhawaaq dheer inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun hawshaasi aad iyo aad ayaan uga xunnahay waxaan halkan baaq ooga dirayaa dadka ehelka aha ee dega meelo badan oo ka mid ah dowladdeegaanka Soomaalida oo jufadaas waxaan leeyahay dawladdu waxyaabo fara badan oo naqancin waayay haddaan qodbo joogta ayaa nooga muuqda oo faragelin ah ha noqoto in la isku dhaafinayo qoys oo dhexdooda la isku mashquulinayo ama ha noqoto in la beegsanayo qaybo ka mid ah qaybta annaka noogu jirta siyaasadda ee namataleysa oo ugu dambeeyay axmed ilka case oo saan maqaalo nagu tahay ilaa iyo hadda jaani cilib meel u dhigay aanaa ogeyn sidii ciidan loogu hareeriyay gurigiisa waxaan halkan ka sheegaynaa haddaan nahay dawladdu waxaan ka sugaynay iyo waxay noo sheegtay midna kama hayno waxay noo sheegtay cadaalad in la iscafinayo in wixii la iloobayo laakiin waxaad moodaa magacii heego inuu noqday qoyskii heego waxaa ahaa dowlad deegaanka Soomaalida oo dhan laakiin heego ayaa waxay noqotay qoys gooni ah waxaan leenahay dawladdu waxa ka fiirsato tallaabooyinka ay qaadayso ilaa iyo hadda maanan ku wajihin waxa weji ah oo colaadee dawladdu waxaan leenahay wejigaas ay samaynayso oo ah colaadda ay dhex dhigayso dadka walaalaha ah ee dhex dhigaysa colaadda ha ka waantowdo hawshaa dib hooga noqoto madaxweyne cagjar waxaan leeyahay hawshan foosha xun ee ka dhacday xadhaan muuse iyo meelaha kaleeto oo dowladdeegaanka ahaa ee la beegsanayo qoyska madaxweyne haddii aad hawlahaasi si degdeg ah ana tallaabo loo qaado magacaygu waa maxamed aadan guddi halkan waxaan uga tacsiyeynayaa ugaas maxamed cabdullaahi xaamud oo gacan ka qadaran ay dishay waxaan leeyahay allah u naxariisto ugaaska qaraabadiina samir iyo iimaan allah ka siiyo waxaan baaq u dirayaa dadka walaalaha ay wada degan waxaan leenahay dadka inay maaragtay dadkii gacanta geystay si wada jir aha inay maaragtay isaga kaashadaan cadaaladana la hor keeno waxaan kaloo tacsitiina ayala u diraynaa dadkii lagu laayay heela dheere oon iyagana leenahay tacsi baan u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeenna allah maaragtay ha u naxariisto dawladda waxaan ka codsanaynaa barnaamijkan soo cusboonaaday ee maaragtay qabaa'ilka ee dadku madaxa iskula jiraan inay xal u keento oo maaragtay ay xalliso barnaamijkaas dadka wada degan ee walaalaha ahana waxaan ka codsanaynaa ruux kasta wuxuu leeyahay beertiisa iyo gurigiisa wax maaragtay dhul ah oo dadku ay kala leeyihiin ma jiro dadku waa dad walaala waa dad islaama suu nabigu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh ruux kasta ruuxa kale dhiiggiisa iyo nasabkiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisa waa ka xaaraan ruuxii ruux dila aakharo yacni wax tolo u imanaya ma jiro keligii baa qabri gelaya maadaama uu keligii qabri gelayo ruux kasta waa inuu maaragtay isagu يعني ku xisaabtama maaragtay wixii dhawaan ka daba imanaya marka codsigaas aan dirayno dadku inay iskaashadaan dhinac u wada jeedsadaan dawladduna dadka ay maaragtay ku garab istaagto qaabkii loo walaalayn lahaa ee seminaaro loogu furi lahaa oo dadku ay gacmaha soo qabsan lahaayeen magacaygu waa xasan ibraahim sheekh waxaan ka mid ahay qodbo joogta South Africa Hira Cabdille khaasatan odayaasha waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa runtii Universal TV Idris aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ku faraxsanahay jaaniskan uu nasiyay inaanu kaga hadalno munaasabadda tiiraanyada leh ee tacsida ah aad iyo aad baan u salaamayaa baxda saxaafadda Universal TV
salaan kadib halkan waxaan tiiraanyo aan uga dirayaa ugaas maxamed cabdulaahi uu ku geeriyooday nawaaxi hadhaamuus runtii gacanka xaq daran baa dishay allaha u naxariistaanu leenahay qaraabaduu ka geeriyooday iyo ehelkiina sabir iyo iimaan allaha ka siiyo runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dadkii gacanta ku qabtay hawshaas ee xakameeyey ee waxgaradka iyo ugaasyadii odayaasha ahaa aad iyo aad u mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa mahad ballaaran wanaag bay sameeyeen waxaan kusii boorinaynaa inay wanaaggaas ay ku sii dadaalaan dadka walaalaha ee beelaha ee meesha wada dega dhulka waa la wada leeyahay dadku waa ehel xumaani ma jirto qiiqa dadka dhex galay waxaa wanaagsan in laga daayo waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu sheegaynaa dadka waxgaradka beelaha halkaa dega ee ehelka ee walaalaha ah meel kastoo joogaan ee gobolka ku nool khaasatan arrintan hadda aanu u taaganahay in waxgaradka iyo odayaashu ay gacanta ku qabtaan si wada jira dawladda waxaanu u jeedinaynaa runtii waxyaabaha dhacahaya way la socotaa waxaanu ka codsanaynaa inay xakamayso oo fiiro dheer ay u yeelato oo shaqaaqooyinka meelaha qaarkood ka jira ay aragto oo fiiro dheer ay u yeelato oo ay xakamayso meesha wax ka socdaan oo ay daraasayso baaqaasaanu u jeedinaynaa waadna mahadsantihiin waa maxamed cabdi marka u horeyso waxaan bogaadinhayaa una mahadcelinhayaa kulankan wanaagsan soo qabanqaabiyey marka xigta waxaan maanta isugu nimid in aynu ka hadalno deegaankii aan ka soo jeednay waxyaabaha u dambeeyey ee ka dhacay ama ka jiraba haddaba qodobka koowaad waxaynu u tacsiyeynhaynaa ugaas maxamed ugaas cabdulaahi oo ku geeriyooday waddankii ayna koosgaraysay dhibaatada dawlad xumida ahaa ee ka jirta meesha waxaanu bulshadaas ugu baaqaynaa marka koowaad inay yihiin dad walaalo ah oo ehel ah oo xigto ah oo qaraabo ah oo deegaanku ka dhaxeeyo dhalasho iyo ehelnimo ka dhaxayso waxaanu leenahay dadkii uu ka geeriyooday samir iyo iimaan allaha ka siiyo dhammaanteenba samir iyo iimaan allah inaga siiyo marka xigta waxaynu baaq u diraynaa dawladda jirta hadda ee uu hogaamiyo mustafe muunan ku imaanin sifo sharci aha taasi waxay koosgaraysay isaga iyo shacabka deegaanka u xukumo isdhexgal la'aan inay kala boodaan because of safarro badan buu hadda bixiyey intuu hadda jigjiga yimid weli muunan gaadhin meesha la dhaho dhagax buur oo gobolka u sokeeya ah jarar oo ugu xiga ah faafan waxaa weeye marka waxaanu ka codsanaynaa cagjar in uu ka shaqeeyo nabadgelyada iyo horumarka waan ognahay wixii soo maray deegaanka dhibaatadii jirtay ma ahayn mid ay heega waday ma ahayn miduu taliskii cabdi u waday wuxuu ahaa wakhtiga iyo sistamka guud ee Itoobiya ka jira wuxuu ballan qaaday inuusan aargoosan haynin wuxuu ballan qaaday inuu bedelayo wadadii horeeto wuxuu ballan qaaday inuu directionka horle uu macnaha uu istaadgareynhayo oo uu aadayo wixii oo dhan waxaan aragnaa inuu hadda dhabarka u soo jeediyey cagjar waxaan aragnaa inay ka hoos shaqaynayaan gacmo kaleeto oo fara badan oo ku hoos jira waxaanu codsanhaynaa dawladdu ma aha heego wax la dhahay group heega waxay ahayd dawladdii talin haysay heega ma aha sidaas oo kaleeto qoys heega waxay ahayd maamulkii talin hayay ee meesha ka jiray waxaan ognahay heego inay baarlamaanka ku jirto in guddiga fulinta ku jirto in yacni cabinetka ku jirto isla mar ahaantaana si dad gooni ah lagu xalaashanhayo magacan mar kaleeto waxaan leenahay oonu ka digaynaa arrimahaasi cawaaqibta ay keeni karaan waa mid aan la mahadinin bay noqon kartaa waxaynu u baahannahay dadka in la isku soo dhoweeyo ummadda la isu keeno iscafis iyo horsocod iyo wada shaqayn iscafisku ma aha macnaheedu qofkii dembi galay haddii laga daba tegayo yaa dembi halkee laga bilaabayaa sideedaba waxaynu u baahannahay marka in aynu fahanno sistamka dawlad wanaagga ah waxaan ugu baaqaynaa dawladda hadda jirta ee deegaanka in ay wadada saxda ahaa ee ummadda midayn karta ee colaadaha yarayn karta in arrintaas ay ka shaqayso ma aha in lagu mashquulo hebel soo xidh iyo hebel soo afjar iyo hebel wixii waa in la joojiyaa mas'uuliyiintii horeeto ugaadhsiga lagu hayo waa in lagu sheegaa ninkii hoggaankii golaha dhexe oo xubin baarlamaan aha oo dadkii aas-aaska ahaa ah oo madaxweynihii hore ka dambeeyey cabdi ah
meeshuu jiro waa in naloo sheego ma garan karno ugaadhsigan iyo xisaarkan iyo godoomintan iyo suspendinka laisku samaynayo waxaanu weli fiirinhaynaa oonu rabnaa oonu rajaynhaynaa wanaagga iyo horumarka iyo wada socodka iyo in ummadda la isu keeno waxaan rajaynhaynaa inuu mesajkani gaadho dawladda deegaanka waxaan rabnaa midnimaan doonaynaa waxaan rabnaa ugaadhsiga in la daayo waxaan doonaynaa nabad iyo horumar iyo wada shaqayn waanad mahadsantihiin dhammaantiin anigu waxaan ka hadlayaa 3 qodob midda koobaad waa tacsi oo ugaaskaasu saldhig u yahay nimankii kale ka dambeeyay heela dheer ay ku xigaan tacsidaas ragga hore waxay qabaan baan waan ka tacsiyeynaa waana ka xunnaa waana ka burugaysannahay midda labaad waxaan dhihi rabaa dadka eelka iyo deegaanka dhulka uu nagu fulan yahay haddaan iimaankiis ku celino laakiin anagu waxaan aaminsanahay aniga markaan iska hadlo in aynan ahayn dadku waxay isku hayaan gacan inay ku jirto dawladeed dadkii meesha loo soo xilsaaraya dawlad looga dhigay inay dadkii isku dirahayaan qaab qabiilla ay u adeegsanayaan dad gooniyana ay taarget ka dhiganayaan talabaad waxaan la hadlayaa dhinaca jar waxaan leeyahay saynu ognahay sharci kumuuna imaanin xisbi kumuuna imaanin doorasho kumuuna imaanin fure iyo gudwul buu ku imaaday ee dawladdan odayaasha deegaanka waxaan leenahay caqliga saliimka ha shaqeeyo dadkana loo kala gurmado dadku waa ehel gurba degdega weliba oo dadkaa lagu walaalaynayaa loo gurmado waxaa kale oon ku soo noqonayaa mar labaad waxaan ognahay axmed cabdisheekh maxamed gurigiisa 3 maalmood soo dhinu ka jiray lagu hayay xisaar waxaan ognahay oo kale maanta in la leeyahay meel uu ku dambeeyeyba lama ogo waxaan ka codsanaynaa dawladda oo si degdega weliba baaq cod dheer ugu diraynaa inay axmed sheekh maxamed meel ku sheegto anigoo ah Ibraahim Macalin Siyaad oo ka mid ah ururjoogta ku nool magaalada Pretoria ee South Africa yaa waxaan ka soo qayb galay hawshan tacsida ah ee loo tacsiyanayo ugaaskii ku geeriyooday gudaha Ethiopia gaar ahaan kilka shanaad Alaamuuse meesha la yiraahdo iyo raggii ka horreeyay oo iyaguna ku geeriyooday heela dheer waxaan leeyahay Ilaahay naxariista oo siiyo kulligood intii la dhasheen ama ay ka dhasheen oo aan ka mid nahayna inuu Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo taas waa tacsiib waxa soo hadhay midda kale ee kilinka dawladda waxaan sheegayaa kilinka dawladdii ka horreysay xilligii ay talinaysay dad shacab isma leeyin shacabku sababta kala haystay ammaan iyo nabadgelyo insha Allah waxaan Ilaahay uga baryayaa iyagana inay sidoo kale ku soo celiyaan shacabku inuu isaguna nabad noqdo iyaguna ay wax yeelin insha Allah waxa kale oo leeyahay baasha dimuqraadiyadda la dhaho madaxweynaha kilku wuxuu isku dayayaa xawaare aad u culus inuu ku meel mariyo laakiin Afrikada bari baan ku noolahay dimuqraadiyaddu sidaa kuma hirgali karto waxay u baahan tahay qorshe degan nidaamsan habaysan markaa kadib yaa step tallaabo loo fulin karaa sidaa darteed shacabkana waxa kula talinayaa waxba yaan aad loo kicin nabadda xaggeeda aan u badanno hala taageero dawladda dib ma jiro xukun kastoo yimaadana ciladiisu wataa iyo dhibkiisa insha Allah wax walba khayr baan loogu dambeyn doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi magacayga waa maxamed nuur cabdullaahi marka u horeysa kulanka aan isku nimid waa kulan tacsiye ah oo ku saabsan ugaaska arintiisa markaan taa ka gudbo ugaaska Allah u raxmado gacan ka xaq daran baa dishay tan labaad waxaan baaq u jeedinaynaa gobolka arintiisa yahay noqonin dhari dab saaran oo biyo ka karaan had iyo jeer waa in la bedelaa qadka systemkii hore iyo systemka hadda jiro waa in la kala eegaa dadkana waxa weeyaan Soomaaliya ku mahda nabada naas la nuuga leh haddii nabad la waayo xal imaan maayo haddii beel la beegsadana meeshii ay ka timid inay ku noqonaysaa waxaan uga digaynaa maamulka hadda jiro ee madaxweynaha cagjar uu hogaaminayo in barti ay ka timid uuna bahas ku celinin annagu waan dhageysanaynay habeenkii u horreysay qodbadu jeediyay waxay ahayd sinaan cadaalad nabadgelyo intaa inuu ku baaqahayo haddana waxaa noo soo baxaya in beesha la beegsanahayo oo meelba hadba laga weerarayo maamaha aan dhagaysanayay shabeel waxaa la yidhi hilibka markuu kiilaynhayo hadba dhinac ka cuna in loola adeegsaa ragga aad baan uga xunnahay waa khalad tutaliba waxaan codsanaynaa in arrintan lagu soo celiyo meesha hore haddii dagaal la cilaamiyana ninkii u darantay waa la garanaya hawsha hala bedelo waxaan codsanaynaa gobolka in sidiisa lagu soo celiyo haddii noqon weyso aan ku kala socono dagaal wuxuu yahay ani koonfur baan ku dhashay ka yimid annagaa nala weydiiyaa dagaal sokeeye
nin aas-aasay meel ma gaadho dadku ka yimid buu ku noqonayaa waa baaqa aan tijaadinayno waa in maslaxada laga shaqeeya wadajirka walaalnimada labadii iskhilaafta walaala waa inay sulax oo si nabadgelyo ah loo dhameeyaa hadda waxaa inoo muuqata in dadka walaalaha jifada ahaa laisu adeegsanayo hadda maalin meel wax laga asaasayo waana ka xumahay I'm very sorry that anagoo ka hadlayna magaca jaalida ee beeshu baaqa aan u dirin walaalkan waxaa weeyaan haddaad nabadii keento hadhow waxaa adigu ku sheekayn lahayd ama lagaaga sheekayn lahaa waa inaad abuurataa nin kastaba beejku abuurto unbaa soconaya taasaan u sheegaynaa mirahaad beerato unbaad guran haddii lagu dhaho ugaas buu ahaayo nabadgelyo asaasay difaacaada uu badanaya dalkaadana garab gashanaya haddii laakiin aad dalkaada lahays nin walaalkii dilow meel uu aado ma lahan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu